hudheelkii deganaa dharkaygii ilaa moobladeydii baan ka geymay qaar ka mid ah dhammaan waxa weeye sidii aan subaxii hudheelka uga soo baxay aan waraaqda corona u qaadanay dib uguma noqon nin weyn baan ahay ilaahay baa igu og Soomaaliland dhan arrinkaasi uu dadkii Soomaaliland iyo Soomaalidii joogtay meesha la Addis Ababa warkaasi way ka dharagsan tahay aad iyo aad baan uga xumahay arrinkaasi wuxuu ahaa qafaalasho waxa weeye qarannimadan ceeb ku ah qofnimadeedana dhib ku ah oo ay abaabushay dad u adeegaya waxa weeye dawladda oo nu aragno in sistemo dawladda ka hoos samaysmay oo dawladnimadii iyo Soomaalilandnimadiiba ceeb ku ah iminka maxaad u malaynaysaa anigoo de immunity loo xildhibaan xasanad loo la doortay oo waliba arrimo family tagay sharci ku joogay qofka saal oo la macaamilayo qofkii muwaadinka ahaa ee Somalilanderkaana waxa ka badan baa lagu sameyn karayaa badbaado ilaahay baan halka ku soo gaaray waxa lagu talagalay in la qafaalo waxa lagu talagalay in guri gaar ah la geeyo waxa lagu talagalay in sal lagu hayo waxaan kaliya ku guuleysanay in ciidanka booliska noo yimaadaan saliga aanu tagno xarun dawladeena aanu tagno ayaa ilaahay nagu guuleeyay arrimahaasi waa dhacdo ugub ku ah qaranka Soomaaliland in dagaaladii localka ay ka socday dalka ee siyaasadda ahaa iyo Britain-ka ahaa in laga dhigo colaad laga dhigo dawladdan oo xildhibaan qarankii Soomaaliland matalaya oo waxa weeye xafladihii qaranka ka qayb galiyay in waxa weeye nooca dad calooshooda shaqeeyay loo diro arrinkaasi arrin aan ka harayo maaha waa arrin aan insha Allah dib gali doono ka waxaan cadeynayaa waa goor gaaban hadalkeedna gaaban arrinkaasi wuxuu ahaa qafaalasho ilaahay iga badbaadiyay xildhibaano badan maxay ka saaray la doonayay waxaan cadeynayaa in wixii ka dambeeya go'aan degdeg oo aan qaatay oo ah inaan maanta wixii ka dambeeya aan qayb ka ahay golaha wakiilada qaybta badbaado aan u arkaan waayo dalka de lagu ma sii eegan karo qaabkan loo maamulayo lagu ma eegan karo xildhibaanada golaha wakiilada waxaan ka codsanayaa dawladnimada Soomaaliland waa saddex dhardhaar oo isdheeli tiraya check and balance hadduu lumana waa ceeb xildhibaanada ay keeneen isbahaysiga mucaaradku waxaan aaminsanayay dawladnimada qayb ka noqonaya anigu kulmiyaan ahay kamana baxayo kamana bixin mucaaradna kama biirin laakiin waxaan noqonayaa garab badbaada baan noqonayaa iyo hadduu alla ka dhigo garabka isbahaysiga ee dalka badbaadinaya insha Allah ayaan qayb ka noqon doonaa xildhibaanada doorto aad iyo aad baad u salaamantihiin guuliyo gobonimo aynu rajaynayaa